adduunka ugu nasiibka badnaa ninka adigu ugu nasiibka badnaa maalmaha kamid ah ayaa asagoo hor fadhiyo gurigiisa ayaa wuxuu arkay diig ama diiq sa u taqaano ayaa wuxuu soo qaraabanay diiq ayaa wuxuu cunay faraantiga Soomaaliyeed waxa ku jira meesha dahabka taasoo dahab ayuu laqay maalmaha korna waxa la wacay geliyay tuulo ninka uu joogay boqorkii ka tilinay naagtiisa ayaa ka luntay baasha dahabka markaas la dhahay hoosaasa dhacday boqoradeyda ay dahabka ka lumay ninkiis keena lacagtaas wali abaal marin haye ninkii ilaahay amarka wuxuu dhahay ana arkay dib wuxuu tagay boqorkii wuxuu boqor ana sameynaya baalka keenay diqayl la soo qabto diqayl baa la soo qabtay weeyda gowrac wala gowracay aloosh ka soo bixiyay baalka ilaahay amarka lagu soo bixiyay ninkii maalinka waxa loo qasado inuu yahay ninka ugu khatarsan dhinaca falalow ninka waa soo qaatay ilaahay amarkii maalmo ka bacday magaalada lacag baa laga dhacay oo boqorka lahaa waxa la ninkii falalow loo yeero haye ala falalow ala marka hore baaha oo diiq aloosh waxa ku jira soo saareen maanta waxa laga rabaa inaad soo saarto lacagtii rag xaday taniku muxuu ka qarnaa ilaahay baa wax sugu aadiyay ninkii muxuu gacan saartay wuxuu ku hadlu garan waayay waxa la hadda lacagtaas tuuta ku soo saaray waxa la biraada noqon ka wata naagtiisa u tagay walaalay saamba dhacday annu wixii dib garanayay maalinka diiqa oo arkay markuu la qaaya halkan hada waxa xalun jirta xadaan iska carar ay wuxuu waan bir waan baxsar waan dhuunay caawa ilaahay ka dhigo mugtire badal wuxuu ku xisaabtamaan dayaha iyo xidigaha tirsadaan wuxuu xidigaha markuu soo baxo xidigaha markuu soo baxan ikay jabati loo dubay wadada ku sii maro ilaahay amarkii marso 9 saac habeenimo ay dhahay xidiga koow soo baxay sooka marka tuugti marka lacagta xadina guri agtiisa joogan waxay rabaan in lacagta inta isaga u geeyaan intuu waaga barin waxay ay marka kana xasan inuu ninka yahay sixirolo waale waxay intuu sheegin lacagta inta u geeysan guriis inta u dhigtaan iska dhunta ilaahay amarkii markuu xidiga koow soo baxay waxa soo baxay tuugi koowaad oo rabo inuu soo fiiriyo waxa dhahay kii koowaad uu soo baxay ninkii tuugaba ilaa ka soo baxay uu yaabay tuugi wariyaa wallahi wuu fahmay ka baa waa laba kilo shay waraa meesha ka kaca maxaa ninkii uu fahmay ninka kiciya ayuu baby hada waan kiciisu xaajiyo haddana kii labaad soo baxay xidiga labaad soo baxay tuugi labaad Allahu akbar wallahi waa ruwan la fahmay fadhiga naga kiciya haddana baby hada waan kiciisu buu dhahay kii saddexaad soo baxay xidiga saddexaad marka xidiga saddexaad markuu soo baxay inuu gooyo carro magaalada ka carro tuuga saddexaad soo baxay asuu lacag loo orday wallahi lacagtii qabso ilaahay ku dhaartay wixii hal sheeg ninka sidoo ku badbaaday boqorkii lacagta u geeyay boqor waa tan lacagtii boqorkii ninka uu siixay inuu yahay falalow inuu yahay cilmi aqaan falalashi kale waxay dhahayn ana wallahi ma yeelanay diinta ilaahay ninkan maanta kala baxayna kala saar boqorow ninka falalow wili uma aqoonsan hay ma xasmeynaysin mid falalow waxa dhahay ana maraq baan sameeyay wixii lagu cun lahaa jibisa ka soo saar asagoo meel kale aad dadka xasuusna ninka maxaa siisiyay jabatiga soo wadada ku sii maray ku wata ku dhahay islaanta wadada ku sii maray ilaahay markii ku wata meesha la fadhiya adduunka dhan dadka dhan saa u fiirsanayaan ninkii sixirolaha wuxuu sameeyay maraqi waa ka maraqi waxaad ku cunay imo ismu dhiman aarmo jabatiga la soo baxay dadku way yaabeen quraanka oo sixirola kalaba bismillaahir rahmaanir rahiim والله قال كي وقر في لاني كان وقر سحرولي مد كلا بوقك وحو داهي فين انا كلا بخينايا هاي وامركا نينك وامركو ميشو ku qaad lahaa waliga dib ugu nasiib ka badnaa sixrooli wuxuu keenay boqorku wuxuu keenay sanduuq weyn sanduuqan waxa ku dhex jira canab baa la dhaama ku dhex jira bas sameesto dhig kan waxa ku jira tufaax marka sixlaasha waxa la kala doordoorta mid kasta mid buu doortay ilaahay amarkii kan asan ku soo aaday waxa ku jira canabki islaanta asaga u qaan waxa la lahaa canab baa la lahaa markaas waxa la lahaa ninkii baalka ku guulaysan waayo kurta laga jari markaas ninkii intuu sabar ku fiiri hore inuu dhaho canabi masiiba dhigtay masuula ala canabi asawale uma dadka sacab isku daraniyo farashaxan oo ku guulaysta boqorka u sacabti maxaa meesha ku jiray loo canab ninkana wuxuu canab lahaa islaantiisu haystay nink maalintii sidoo ku noqday niga dib u nabsay ka badnaa taasi ku soo gubay sheekadii had ka leeyahay markaa idinkeeda maraysaa marka isma garan weyn inta dance ka hor baan bye bye